kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halka Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idiinana waxaa kamid ah Juventus ayaa Ramsey usoo bandhigaysa Barcelona. Atletico Madrid ayaa indhaha ku haysa Maxi Aronis. Arsenal ayaa dalab ka gudbinaysa Odegaard. intaasi waxay qodobadii warkaatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Juventus ayaa Ramsey usoo bandhigaysa Barcelona. warbixintaasi waxaa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim. Kaasoo markaata ayaa sheegaysa in Ramsey loo soo bandhigi doono kooxda Barcelona si ay u helaan Pjanic oo 31 jir ayaa Barcelona ugu biiray heshiis isdhaafsi ah, laakiin Barcelona ayaa u baahan inay iibiso xidigani si ay mushaarkiisa ugu xoojiyaan qandaraaskooda Leo Messi. Pjanic ayaa sanadkii mushaar ahaan u qaata 9 milyan oo gani, laakiin Juventus ayaa Ramsey usoo bandhigtay Blaugrana. Ramsey ayaa asna mushaar ahaan u qaata sanadkii 7.5 milyan oo gani, balse maamulka Barcelona ayaa dalab ka soo gaaraya Turin. Juventus ayaa damacsan ulajeedka ah inay sameeyaan xidigo isku bedelasho xilli ciyaareedkan. Atletico Madrid ayaa indhaha ka haysa Maxi Aronis. warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. kooxda Atletico Madrid ayaa indhaha ku haysa difaaca Norwich City ee Maxi Aronis. Damirar ayaa sheegaysa in Atletico Madrid ka dhigtay Aronis bartilmaameedkooda xilli ciyaareedkan. United ayaa mar laga soo diiday dalabka ay ka gudbiyeen Maxi Aronis, balse hadda waxay diyaar u yihiin inay soo laabtaan dalab cusub maadaama Gunnar Solskjaer uu doonayo in uu xoojiyo difaaciisa. Atletico Madrid ayaa noqotay kooxda waqtigan ugu hadalhaynta badan markii loo eego dalabka Maxi Aronis. kooxaha Man United, Arsenal, Tottenham iyo Everton ayaa waxay kormeerayeen horumarkiisa xidigan. Arsenal ayaa dalab ka gudbinaysa Odegaard. kooxda Arsenal ayaa diyaar u ah inay dalab ka gudbiso weeraryahanka Real Madrid ee Martin Odegaard. Odegaard ayaa amaah ku qaatay garoonka Emirates waxa uuna soo jiitay indhaha maamulka iyo taageerayaasha Arsenal. Martin Odegaard ayaa aad ugu qanacay muddadii gaabneed uu la shaqeeyay macalinka Arsenal ee Mikel Arteta, balse markii uu Odegaard ku laabtay kooxdiisa Real Madrid waxa uu dareemay in uusan boos ka heli doonin nidaamka uu xilligan wado maamulaha cusub ee kooxda Carlo Ancelotti. Mikel Arteta ayaa qadar weyn u haya Martin Odegaard isagoo jecel in uu laacibkan dib u kooxda ugu soo laabto. Napoli oo sii haysanaysa xidigaha Insigne iyo Koulibaly. qodobkaasi waxaa eegaya Qamar Maxamed Cumar. tababaraha kooxda Napoli Luciano Spalletti ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisa sii heesan doonto Lorenzo Insigne iyo Koulibaly. Lorenzo Insigne ayaa hadda ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay qandaraaskiisii kooxeed. Luciano Spalletti ayaa telefoonka kala xiriiray xidiga Lorenzo Insigne waana la soconaa dhaqdhaqaaqa kooxaha waqtigan doonayaan saxiixiisa laacibkan. Spalletti ayaa sidoo kale ammaan dusha kaga tuuray Lorenzo Insigne iyo Koulibaly waxaana uu ku tilmaamay in ay ka mid yihiin hubka ay ku faanaan waqtigan. Koulibaly ayaa dhawaanahan bal la xiriirinayay in uu u dhaqaaqo kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska ee Everton. Koulibaly ayaa dhawaanahan bal la xiriirinayay in uu u dhaqaaqo kooxda ka dhisan horyaalka Ingiriiska ee Everton, balse saaxiibada ku dhaxleeyihiin kooxda Napoli ee Insigne iyo Koulibaly ayaa dhamaantood jecel in ay sii joogaan sanado kale. Liverpool ayaa ka walwalsan mustaqbalka Mohamed Salah. qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. madaxa kooxda Liverpool ayaa ka foojigan dhaqdhaqaaqa ay wado kooxda Real Madrid isbuucan. Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa inay dalab dhab ah ka gudbiyaan Mo Salah oo u arkaan inuu yahay saxiix muhiim ah. Daily Express ayaa sheegaysa in Real Madrid in muddo ah ay raadinayso laacibka kooxda PSG ee Kylian Mbappe, laakiin haddii ay Real Madrid ku guuldareystaan dalabka Kylian Mbappe waxa uu dhaqaaqi doonaan laacibka Liverpool ee Mohamed Salah xilli ciyaareedkan. Henderson ayaa qarka u saaran heshiiska cusub ee Liverpool. kabtanka kooxda Liverpool Jordan Henderson ayaa qarka u saaran heshiis cusub inuu u saxiixo kooxdiisa. Damirar ayaa shaacisay in Liverpool ay diyaar u tahay in wada hadal heshiis cusub la furto Henderson. 31 jirkan qadka dhexe u maamula kooxdiisa Liverpool ayaa qandaraaskiisa garoonka Anfield kaga harsan tahay 2 sano kaliya, laakiin maamulka Liverpool ayaa raadinaya in ay xidigan ay siiyaan heshiis u muuqanaya in ay waayihiisa kubadda cagta ku dhameysto garoonka kooxda Liverpool. tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa aad ula dhacsan dabeecad ahaan Henderson marka uu ka dhex muuqdo garoonka dhexdiisa, wuuna ogyahay inuu muhiim u yahay qorshayaashiisa mustaqbalka ah. Liverpool ayaa diyaar u ah inay heshiisyo cusub siiyaan xidigaha Van Dijk iyo Alisson. intaan kusoo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV iyo aniga Munac Ismaaciil kaga tagana sidaas iyo nabadgelyo.